weligaa ma isku aragtay adigoo haysta qalinno midab ah oo cusub oo aad garan weyday waxaad ku samayso? Hagaag, malaha maya. Laakiin inta badan waxaan leenahay qalinno midab duugoobay oo guri yaalla midabkooduna libdho. Ka waran haddii aan kuu sheego in aad nolol cusub siin karto qalinnadaas duugoobay adigoo ka samaynaya waxyaabo qurux badan sida tan ama xitaa kuwan kale? Haa, waa suurtagal. Waa tan sida loo sameeyo. Marka hore, dooro qalinka midabka ah ee aad rabto in aad u beddesho qaab cusub. Kadib ka saar dhammaan warqadda ku duuban qalinka. Hadda jebjeb qalinka si uu u noqdo qaybo yaryar oo fudud in la adeegsado. Ku celi tallaabadan midabyo kale oo badan. Inta midabadu ah sida bulug casan cadan hurud basil natiijadu way ka qurux badnaan doontaa. Marka xigta qaado caariyo mold silikoon ah oo aad jeceshahay. Anigu waxaan isticmaalayaa caariyo leh qaabka Mickey iyo Minnie Mouse. Hadda ku buuxi caariyada qaybo ka mid ah qalinnada midabka. Hal midab oo keliya waad isticmaali kartaa. Laakiin isku darka midabyo kala duwan waa ka qurux badan yahay. Ka waran. Kadib marka caariyadu buuxsanto, geli microwave-ka muddo 3 daqiiqo ah. Markaas kadib si tartiib ah u simo qalinnada dhalaalay adigoo isticmaalaya ul yar sida qori. Kadibna mar kale microwave-ka ku celi 2 daqiiqo. Waa hagag. Siday kula tahay carruuray? Sug muddo 3 daqiiqo ah. Kadib, marka qalinnadu si buuxda u dhalaalaan, u daa in ay habeen dhan nasato si ay u adkaadaan. Waa hagag. Kadib 2 daqiiqo kale ku celi microwave-ka. Waa kululay, iska ilaali ha taaban. Moldka ka soo saaranaya qalin midabada dhalalay. Waa hagag. Hadda aan eegno sida ay u soo baxeen qaababka Mickey iyo Minnie Mouse. Sidoo kale,